السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa dhacda khudaar aynu isticmaalno oo diirkeeda sare aynu iska tuurnaa inuu diirka sare ka qiimo badan yahay khudaarta lafteeda ee aynu isticmaalayno. Haddaba aynu aragna diirka sare ee rumaanka iyo diirka sare ee liin dhanaantu faa'iidooyinka ay leeyihiin. Aynu ku horreynaa diirka sare ee rumaanka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah: haddii aad isticmaasho midhaha rumaanka isla markaana aad og tahay qiimaha iyo waxtarka caafimaad ee midhaha rumaanku ay jidhka u leeyihiin, aan kuu sheego inaad diirka sare ee rumaanka qallajiso, kadibna aad daqiijiso ama aad shiido. Markaa kadibna aad ku darto malab saafi ah, kadibna aad subaxdii cunto hal qaado oo ah malab saafi ah iyo diirka rumaanka oo la daqiijiyay oo la isku daray. Isla markaana aan kula wadaaga 12 faa'iido oo uu jidhka u leeyahay marka qaabkan loo isticmaalo diirka rumaanku. Waxaanay kala yihiin faa'iidooyinka uu diirka rumaanku jidhka u leeyahay marka qaabkan loo isticmaalo sidan soo socota. kow diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee jidhka ka ilaaliya xanuunka beersubagowga ee kolestaroolka noociisa xun ee la yidhaahdo LDL. waxaanu wanaajiyaa xaaladda kolestaroolka aan dhibta u lahayn jidhka ee la yidhaahdo HDL. laba marka diirka rumaanka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee kor u qaada caafimaad qabka wadnaha ilaa xadna yareeya dhammaan cilladaha iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. saddex diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee kor u qaada caafimaad qabka maqaarka sare ee jidhka. afar diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee ilaaliya guud ahaan caafimaad qabka caloosha ama uurku jirta. shan diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee ka hortaga daadashada timaha korna u qaada caafimaad qabkooda. lix diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee kor u qaada difaaca jidhka waxaanu jidhka ka ilaaliyaa nooc kasta oo fayras ah. toddoba diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee hoos u dhiga miisaanka badan ee jidhka. sideed diirka rumaanka marka qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee sunta ka nadiifiya kana saara jidhka waxaanu gubaa subaga badan ee ku jira jidhka. sagaal diirka rumaanka oo qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee nadiifiya micidherada waxaanu ilaaliyaa caafimaad qabka beerka iyo kelyaha. toban diirka rumaanka oo qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay dawada ugu wanaagsan ee ay cunaan dadka la dhiban xanuunka gaastarigu noociisa xun. 11 diirka rumaanka oo qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay dawada ugu wanaagsan ee gooryaanka lagaga nadiifiyo caloosha. 12 diirka rumaanka oo qaabkan loo isticmaalo waxa lagu sheegay dawada ugu wanaagsan ee lagu daweeyo xanuunada laga qaado qaniinyada kaneecada. haddaba dumarka uurka leh ayaa lagula taliyay inaanay iyagu isticmaalin diirka rumaanka. sidoo kalena dadka qaata kiniinka dhiigkarka ee inta badan dhiigoodu kacsan yahay ayaa lagula taliyay inaanay iyaguna isticmaalin diirka rumaanka. guud ahaana xaddiga laga isticmaalaya diirka rumaanka ayaa lagu taliyay inaan xaddi badan laga isticmaalin. dhinaca kalena diirka sare ee liin dhanaanta iyo faa'iidooyinkiisa ayaa waxaa ka mid ah: inagoo ka wada dharagsan waxtarka liin dhanaantu ay leedahay, haddana inteena badani liin dhanaanta waxaynu u isticmaalaa qaab keliya. qaabkaas oo ah inaynu biyaha ku jira liin dhanaanta ka tuujinno kadibna iska tuurno diirka sare ee liin dhanaanta. laakiin waxaynaan ogeyn in diirka sare ee liin dhanaantu in badan uu ka waxtar badan yahay biyaha laga tuujiyo liin dhanaanta. cilmi baadhis arrintan lagu sameeyeyna waxa lagu sheegay in faytamiinada kala ah faytamiin C iyo faytamiin B6 inay 10 jeer laab ka badan yihiin kana waxtar badan yihiin kuwa ku jira biyaha laga tuujiyo liin dhanaanta. sidoo kalena maadooyinka calciumka, magnesiumka iyo potassiumka ee ku jira diirka liin dhanaantu inay in badan ka waxtar badan yihiin kuwa ku jira sharaabka ama biyaha laga tuujiyo liin dhanaanta. waxaana diirka liin dhanaanta ku jirta oo ku badan maadada baktiin oo muhiim u ah jidhka, dawana u ah xanuunka sonkorowga ama macaanka. waxa kaloo diirka liin dhanaanta ku jirta maadada bioflavonoids, waana maado jidhka ka saarta sunta kana hortagta xanuunka kansarka. faa'iidooyinka caafimaad ee diirka liin dhanaantu jidhka u leedahayna waxaa ka mid ah: waxay u fiican tahay caafimaad qabka lafaha, hoosna waxay u dhigtaa khatarta kolestaroolka halista. sidoo kalena waxay yaraysaa xanuunada ku dhaca wadnaha, waxaanay habaysaa xaddiga sonkorta ee jidhka ku jirta. waxay sidoo kale wanaajisaa caafimaad qabka ilkaha iyo ciridka. sidoo kalena waxay jidhka ka ilaalisaa burooyinka kansarka ee jidhka ka soo baxa. qaabka aynu u isticmaalaynaana waa inaynu diirka liin dhanaanta jarjarno, kadibna tunno ama daqiijinno, kadibna aynu ku shubno weel nadiifa, kadibna aynu gelino talaagada. intaa kadibna diirkii liin dhanaanta oo aynu daqiijinay waxaynu ku darsanaynaa cabitaanada sida shaaha, sharaabka iyo xataa cuntooyinkaba.